maxaa dunida ku soo kordhay saacadihii la soo dhaafay dalka Burkina Faso oo heshiis la galay mid ka mid ah shirkadaha tamarta nukliyeerka ee dawladda Ruushka. haddii taa lagu guuleysto Burkina Faso waxay ka mid noqon doontaa dalalka haysta tamarta korontada nukliyeerka ku shaqeysa. kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa dhowr gantaal ku weeraray maraakiibta dagaal ee Mareykanka kuwaasi oo ku sugan biyaha badda cas. telefishinada Mareykanka ayaa soo saaray digniino ah in aagga dhinaca Lubnaan uu noqon karo aag kale oo khatar ah kadib markii saacadihii u dambeeyay reer Lubnaan iyo ciidamada Israa'iil ay isweydaarsadeen duqeymo. haddaynu eegno dhanka ciyaaraha, toddobaad ka hor kulanka El Clasico kooxda Real Madrid ayaa dhibic kaliya kala soo laabatay kulan adag oo ay la yeesheen kooxda Sevilla. dhanka kale kooxda Arsenal ayaa soo laabasho cajiib ah samaysay iyagoo ka soo laabtay 2-0 daqiiqadihii u dambeeyay ciyaarta.